Isbuucyadii dambe waxaa aad loo hadalhayaa dhiibista qalbi dhagax ee Itoobiya waxayna noqotay guuxa iyo adalhaynta ugu ballaaran ee bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Shacabkeena oo ah ummadda ay kaliya indhahooda qabtaan waxa markaasi socda ayaa durba bilaabay aflagaadada madaxda qaranka iyagoo aan si qoto dheer u eegin xaaladda socota iyo shirqoolka cadawga ummadda u maleegay madaxda dawladda. Laga soo bilaabo doorashadii taariikhda ahayd ee 8 February, Itoobiya waxay isku dayday dhowr mar inay fashiliso dawladda cusub iyadoo mar walba soo adeegsan jirtay siyaasiyiin Soomaaliya qalbigana maxaaraka kuwaas oo sameeyay isku dayo ballaaran oo ay meesha uga tuurayaan dawladdan cusub oo cadawgu arkayay qodax ku taagan. Isku dayadaasi waxaan ka xusi karnaa tii cadawgu isku dayay inay mooshin ka keenaan xukuumad aan 3 bil shaqeyn iyagoo adeegsanayay xildhibaano ka tirsan dawladda balse dana maxaar u jooga dalka waxaana hogaaminayay xidig. Haddaba markuu fashil ku soo gabagabay mooshinkii ka dhanka xukuumadda, cadawgu wuxuu isweydiiyay maxaa sababay fashilkooda hadda markii horena sababi jiray in hagaardaamooyinkooda ku fulaan si dhaqso ah. intaa kadib cadawgu waxa uu soo baxday inaysan guul ka gaari karin dawladdan cusub ilaa ay kala jabisho sidoo kalena kala dhantaasho xiriirka adag ee ku dhisan kalsoonida ee kala dhaxeeya shacabkeeda. iyadoo ka duulaysa arrinkan awoodna u leh qalbi dhagax inay ka wada tagaalkacayo ayay si kasta u soo marsiisay Muqdisho waxaana kala shaqeynayay siyaasiyiin Soomaaliya oo qaarkood ka tirsan dawladda. Marka hore waxaan si kooban u sharxi doonaa qaabka uu qorshahan ku dhacay bilow ilaa dhamaad inta garaadkeedu garansiiyay. Sida aad ka warqabtaan qalbi dhagax waxa laga qabtay koonfurta Gaalkacyo kadibna ciidamada maamulkaasi waxay dhigeen xabsiga. intaas kadib ciidamo laga soo diray Muqdisho ay la socdeen siyaasiyiin ayaa gaaray Gaalkacyo waxayna diyaarad nooca jaadka qaada ugu soo qaadeen dhanka Muqdisho iyagoo lacag soo siiyay maamulka Galmudug waxayna ku amreen inay warbaahinta la hadlaan oo ay u sheegaan in ciidamada nabad sugidda ee dawladda ay si xoog ah ugu soo wateen maxbuus u xirnaa maamulkooda. waa kan wasiirka amniga maamulka Galmudug oo ka hadlaya arrinkan. waxaan halkan maanta u hadlaynaa arrin ka dhacday Galmudug arrintaas oo ah in ciidamada nabad sugidda qaranka ay nagu soo xadgudbeen sameeyeen fal aan isleenahay kuwa habboona u shaqaynta dawladnimada taasoo ah nin maxbuusa oo ay qabteen ciidamada Galmudug ninkaas oo ah nin aan ku tuhunsannahay inuu ka shaqaynayay arrimo qalqal gelinaya ammaanka iyadoo noo socoto baaristii welina aanan arrintiisa gabagabayn ayaa waxaa dhacday qayb ka mid ah ciidamada nabad sugidda qaranka inay si khiyaano ah oo aan loo baahnayn oo kala fogeynaysa dawladda Galmudug iyo dawladda federaalka ah ninka uga dhoofiyeen degmada Gaalkacyo. ujeedada hadalkan ay kala hayeen cadawga ayaa ahayd in shacabka la tuso in dawladda ay gacanta ku hayso qalbi dhagax oo wax walba oo arrinkan ka yimaado mas'uuliyadeeda qaadan doonaan farmaajo iyo qayr. markay intaasi dhacday dadweynaha Soomaaliyeed dhamaantood waxay si kal iyo laaba u soo dhaweeyeen talaabada ay qaaday dawladda oo ah inay si xoog ah Muqdisho u keeneen qalbi dhagax oo ay rumaysanayeen in maamulka Galmudug gacanta u gelin lahaa cadawga Itoobiya farmaajo iyo dawladdiisana ku kalsoon yihiin oo aysan ka soo roobin in cadawga u gacan geliyaan. balse arrinku sidaan u fahnay ma ahayn ee waxaa jiray qorshe ballaaran oo cadawgu hore u degsaday. intaas markii ay dhacday oo qalbi dhagax la keenay Muqdisho waxay geed dheer iyo geed gaaban u fuuleen sidii ay uga dhaadhicin lahaayeen farmaajo in Itoobiya loo dhiibo qalbi dhagax iyagoo adeegsanaya siyaasiyiin Soomaaliya oo isla dawladda qaarkood ka tirsan. waxaana madaxda u sheegeen inuu jiro wada hadal hore ugu dhaxeeyay qalbi dhagax iyo Itoobiya iyagoo u keenay warqad muujinaysa in 2014 uu jiray heshiis dhex maray qalbi dhagax iyo Itoobiya. si walba ahaatee waxay ku guuleysteen inay ka dhaadhiciyaan farmaajo oo ay ka hoos bixiyaan kadibna diyaarad dagaal ayaa Muqdisho looga qaaday qalbi dhagax. arrinta haddaan si kale u eegno oo caqliyeysan ma kula tahay farmaajo oo diiday markuu xilka qabtay inuu safarkiisa ugu horreeyay ku tago Itoobiya inuu u qasday in ruux Soomaaliya Itoobiya u dhiibo? ma kula tahay farmaajo oo markuu Baydhabo tagay ku amray maamulkaas inaysan soo dhaweyn karin ciidamada Itoobiya halkaasi jooga ammaankiisana ay ku filan yihiin ciidamada Soomaaliya? oo sidoo kale aad ka warqabtaan hadaladii gabre uu Twitterkiisa ku soo qoray ee ahaa inuu madaxweynaha ciidanka dalkiisa kula dhaqmay si xushmad darro ah in maanta u qasdo in Itoobiya loo dhiibo qof Soomaaliya. ma kula tahay iska daaya farmaajo qof xitaa daacad ka ahayn wadaniyada balse haysta taageerayaal intaas la eg sidoo kalena og hadduu falkan ku dhaqaaqo inuu lumin doono taageerayaasha badan inuu u qasdi lahaa inuu arrinkan sameeyo? jawaabahaas badan qof walba oo Soomaaliyeed ayaan uga fadhiya oo ay fariinteeda gaarto. haddaba intaas cadawgu kuma aysan ekaanay waxay lacag ku sii bixiyeen in arrinta dab lagu sii shido iyadoo adeegsanaya rag damiirkoodu waa hore dhintay. inkastoo raggaas ay tiro badan yihiin dhammaantoodna aan magacaabi karin
waxaan tusaale u soo qaadan Mahad Salaad oo anigu shakhsiyan beel ahaan sida uu sheegto igu matala baarlamaanka Soomaaliya dawladii tan ka horeysay wafdi uu hogaaminay Xasan Sheikh oo isagu kamid ahaa ayaa gaaray dhulka cadowgu inaga haysto waliba waqtigaasi ka hor caalamku u arkay dhul la isku haysto balse waxa taariikhdaas bedelay wafdi uu Mahad Salaad ka tirsanaa oo gaaray Jigjiga waliba dhaanto ku soo ciyaaray shahaada sharafna ka soo gudoomay Cabdi Ile Mahad Salaad ma umulba sidoo hadda ku noqdo wadani ka xumaanaya dhibista qalbi dhagax mar hadii dhulkii uu dagaalamay qalbi dhagax hore Itoobiya ugu xalaaleeyay haddaba hadii maanta la weydiin lahaa qalbi dhagax ama qof walba oo ka tirsan jabhadda xoreynta Ogaadeeniya keeba idin wanaagsan kii cadawga gacanta ku galiyay ee xabsiga ku dhigay iyo kii intuu tagay dhulka aad dhiigeen u qubaysan u xalaaleeyay cadawga caalamkana tusay in dhulkaas Itoobiya ay leedahay wax muran ahna ka jirin oo ay lafna yihiin urur argagixiso ummadda Soomaaliyeed waa inay fahantaa waxa socda iyo mu'aamarada in loo maleegayo oo cadawgu ka damacsan yahay in iftiinka yar ee Muqdisho ka soo baxay daboolaan ugu dambeyn dawladdu hogaamiye Farmaajo waa inay iska soo dhex saartaa cid walba oo arrinkan ku lug leh sidoo kale waxa looga fadhiyaa madaxweyne Farmaajo inuu xilalka ka qaado cid walba oo arrinkan ka siisay talo qaldan ilaa madaxdu maaha malaa'ig cirka ka soo dhacday oo way qaldami karaan oo laga hoos bixin karaa dabinkana way ku dhaceen sida hadda muuqata balse marna qalbigayga ima siin doono in madaxdii shalay 80 milyan u diiday si ay kor u soo qaado ama ugu soo qaadan sharafta Soomaaliya in maanta qof Soomaaliyeed cadawga gacanta u galiyaan qof walba oo ay fariinteeda gaarto waxaan malaayiin marka codsanayaa inuu sheer gareeyo si ay u gaarto qof walba oo Soomaaliyeed oo aan fahansaneen dabinka in loo dhigay waxa warbixintan idin soo diyaariyay halkan idinkaga jeedinayay anigoo Cabdirsaaq Gumaysidiid oo idin leh dalkeena cadawga ka xurum insha Allah waynu xoroobi doonaa